وعليكم السلام بالحوينة وحكوا يا راي أيه والله إذا على مساكين العبد صح يلا بعد ما تيجي تطلع يلا كده أيه وحدونا هي adiga iyo inantii aqoon yahanada ay Mareykan laga joogo saaxiibada inta wacdo inantaas timaado عاملين حساب ولا بدنا على مساكة طبعا قابليس هذا dadka saacis noo weeyaan noo meesha kala go'an oo adiga ka adkay waxa ku daraya صح inagu waxa nahayo على مساكة madaxweynaha ku jira boqortooyada soo jeedeen wanaag boqortooyada ma jirteen inay meesha ka muuqato ay boqornimada صح oo meesha على مساكة boqortooyada ay isla muuqdaan aye yaa doonaya oo la inoo garto inuu dad ay boqortooyada waa garta iga duwayda meesha ka muuqata geeska Afrika ilaa kiiruus karu yahay iska daayo masto lagu lahaa North Korea shariix la galaya daawar salaad oo ki taraabiib ka dhigay waxa ku yiri ilaa musabbixi liiska haddaba bolosiga weeru noqdo bolosiga robra naxni anaga waxa nooga yeelatay dibadda waa qoyaanimo waxba nagu tuulaysa fikir baan ugu keenay waara fikirkayga la qaadato way wax soo kordhinaya laabtaysa saar kaliya gacan saarkan waxba ku dhex jira bolosiga robra waa bilaa naxni dibadda weynay magarat horey ma wada jeedin ay madaxweyne laan kala aan wicid badan kama aqaan waxa sameeyay bal faraha u diraya faraha ma kala xideen waa u diraya wareey faraha meesha dadba ka wareegto waa markaas xafladda ka muuqdo hadii kala qaban qaabadeedu waxba way qalqabaya ay insha Allah madaxweyne inta habeen kama saxanayna ku hawlanaanaya intana way waxa ku wadogtahay hawsha ugu yeedhay halkan u timi waad ka waraysaa qarash qofku ku soo baxay tigirkii iyo diyaaradii iyo waxaas oo dhan xafladda madaxweynaha waxaan doonayaa inaan qaban qaabada labadeennoo keliya taa layna siiyey anu waxaan doonayaa calaamasaarkii ugu horreeyey ee dil iyo baar bini aadmi Soomaali aan lagu arag inuu noqdo oo dad badan kulminaya bariyo waxa tibaan qoyaan ina doorka soo socda adiga lagu magacaabo madaxweyne noqdo argagixisada saacada dadkii laga baxabo waa isku Barack Obama la hadalnay waxa soo dhan la wada hadalnay waynu qaban qaadinayna sida ugu quruxda badan bay leeyihiin Abdulrahman Faroolan raahiyayo madaxweynaha Soomaaliland u dirhaya bal xafladda ka soo qayb galay halo salaamu calaykum ولد عليكم السلام ومدحوينه الدنيا يا عبد الرحمن وروح قرنا يا ايغو مدحوينه waxaan ku soo wacay waatan xafladii bay bilaabana qaban qaabadii waxa xafladda dad baa loo dirfayay adiga maxaa ku wareeriyay xafladii dad baa diray dhalinyaro reer Puntland oo aqoonyahan oo Mareykan iyo Kanada ka wacay wali xafladii qaban qaabanaysa haye marka madaxweynaha waxaan ku soo wacay irkadii la soo casuumay waxa kamid ah Musabbix madaxweynaha Soomaaliland ya Musabbix madaxweynaha Soomaaliland ayaa kamid ah irkadii la soo casuumay oo hada maxalkii waa ku xafiifiyay maya waxa la isku gartay in la soo casuumo isayntu waa gaar iyadoo issue gaar ah laakiin uu casuumada uu ka soo qayb galo ayaa la isla gartay dhalinyarada caynkaas ay soo jeediyeen aniguna waan ku raacay laantana cid badan iskama naqaan waxaan kuu soo wacay madaxweyne inaad Musabbix la hadasho aad ku soo casuumto inuu xafladda inaga soo qayb galo warada waa la hadlayaa bal waan la hadlayaa oo hadal iga celimaayo waan garanayaa ma garan ay marka waan la hadlayaa inka la hadlayaa bal waan ku soo waraysaa la hadal madaxweyne hadal allaala hadal wiiga diidaa ma jiro waa u maleeyay aan ka diiday ninka aad ugu xidid baad tahay sax waxaan ku soo wacay waxa weeye waan ogahay inay ninka la xidid tahay isku wanaagsan tiinay oo hadaan kula yara kastamay madaxweyne adiguna de ninkana waa nin dibona ma soo marin ninkana waa nin jabhada qatalo saas iga celi doonta waxba ma lehe taas khayr bay iska noqon doontaa kulli xabaaliyo ninka soo kortay bal meesha anu baa maanta fadhiye ana hawl ii taalaaye horta bal waa ku boqoy kaftan baa inoo dambeeyay ninka ila hadal soo casuun haddii alla ka dhigo si degdeg warkiisa ii soo waay salaam calaykum alaykum asalaam halo salaamu calaykum sayd عليكم ورمى إسماعيل عمل قلنا مدحويني مدحويني ورهذا مدحويني ليه لبدا هبلود لبدا دينعو جوغان ما وفرو ليه ما halkaas oo ixtiraasanta adigu والله رولي لبدا دينعو way joogaani habluhu labada dinac way joogaani in adiga anu heeda ba fuudhay isagu yaaqi buu raahday waarun laakiin ya adiga wixii xilkiiba wada madaxweynaha ka soo socday madaxweynaha lagu waa isaga xilkiis waa geeska go'aano waxaan isaga ku saarsanayeen war haddana anigu talada meel baan talada waan ku leeyahay bal war nin odaya baatay waa halkaas waa qarax haye maxaadaysaa adigana waan maqlay xukuumaddaada iyo dowladdaada saad u maamusho iminka waa meel wanaagsan bay mar horeysaayo waxaa laygu wuri iminka macal ummaddiisa fiidkuu seexiya ya dowladnimaday ka mid tahay fiidka la siiyey weliba diidana waan
waayo waa dowladnimada ka mid waa sax wey waayo meel la iska soo jeedo looma jeedo Puntland marka ay seen waan ogaa hawlaha waa la soo Puntland waa fiican baan wayna ilaahay waa nagu asturay markaygii waxay ku wanaagsanay adigu nin labada xaq ba waadahay xaqana de waadahay xaqana waadahay deera muhidiinta ka kays way mislahayn siyaasadda oo dalka labada dal way istahay heerda deera sheegaysaa islaan caana lagu qubay ayaan jirinba inta kale midaan kuu sheego dictor meeshan waxay ku wanaagsan tahay labada xaq u baahan odaygaan saan u shiin doona garan maayo war odayga fariin baa kaaga wada hooyaa oo odaygu waa ku doonaya haye mari doonaya doonaya calaamadaas inaad ka soo qayb karto aniga hadalka cilmihay haye maxaa ma dhacay aniga doonayna calaamadaas kula doonaya hay ka soo doona marka xoogaa qabanaya anna waxoogaa ma la yara kafta mahayo magaalada diboona adigu ma soo marin adeero markaa ninkana waxaa waa nin jabax markaa waad ogtahay ninaan geedba weligii ka boodin iyana aan dhibo iyo waxba soo marin anigana waad haysaa taariikhayga markaasaan wuxuu yidhi calaamisaara yimaado hadda waan u sheegay xafladaha iyo waxaa nooca tegina macalaafarta bixiginan kaaga inaanad ka soo ag wareegin waan u sheegay wixii jirjira aynaan leylay ma waad ogtahay muxuu markaa adigu waad arrinkaada sii soo deji malaa anu ma soo dejin arrinkaa way leeyihin wax qur waan u sheegayaa si digahay marka adiga bal xukuumaddaada inaad la soo darsato ayaan doonaya anigu inaad barato baan moodaya siyaasadahayga siin anigu ma ihin nin cid la tusha waa xaqure ee aan ku ololayn jiray ee dadkaygu igu doortay ee dalkaygu igu doortayna waa madaxweyne go'aan leh wuxuu doonana diida wuxuu doonana yeela laakiin suu go'aanka isla qaata anigu waa sidaan u dhigo baan u dhigaa war hedhabaga kawdhi hedhabaga keliya waxaa kaa dallan inaad i weydiiso ma aqbashay se waji marka cid adiga lama tashanaysa tashigu ma aha hogaamin maaha maha hogaamin qofku hadla tasho waayo habeenka dambe isla tashanaya iyo lagula tashanaya islaamu aan macnihi munaasib ahayn lagula tashanaya dalka maaha dalka weyn meel laga maqlo madaxweyne waxaa lagu doortana weynta askari maasha allah waxaad bal marka adu ma aqbashay mise weli aniga un inaan naftayda go-aanka la gaadho un baa kaa galan markaa imaashiyaha haddii aad seedigay tahay waa aniga isleegaya anaa kugu soo celinaya insha allah waa maasantahay waa maasantaa go-aankaasina waa qaatay waa tegaya meesha taliyaha imika la hadlaa allah u yimaado waxaanaya musiibada iyo safarkuna la qaban waa tegiso السلام عليكم مدحوني وريا waxaad samaysaa wanigu kula soo hadlay ii diyaari waa baxayaa safar baan u baxayaa Puntland baa layga soo wacay waa layga xasuumay waa tegayaa wasiiradina waa safarkaa qaba qaadi Puntland madaxweyne ma la tashanay tashiya madaxweyne wasiiradaadii waxaan nahay dadkaaga yaa kari tashu ma baahna waa aniga safarkayga kugu anigoo madaxweynaha baa tegaya safarkayga meesha doorasha la geeyay laga tashanaya aniga go'aan kan gaaray anaa safraya anaa tegaya ka bax waxaan arrimaha wasiiradana madaxweyne dowladana waa sheegay deegaankaasi madaxweyne laga dhis tashina malamaad wasiiradaadii tashiga dhaaf iyo sahaynta dowladana anaa lay soo casuumay anaa tegaya waa xafladii kala wareejinta xilka anaa saa u tegaya madaxweynaha la soo xidhay weel meelo badan soo wareegay marka inaan tago waa anaa ku tashay aniga tegay shan qof shan wasiir diyaari shan wasiir maxay madaxweyne Mareykanka ama Ruushka dana qatarina hayba waan ku saar leeyahay ciidamada inta joogto bal haata aan quraacin hadda tegay ciidamada maxaa meel kala qabsanay maxaa la igala dibadooy maxay ilaalin ciidamada maxaa qabanay madaxweyne adag ku ilaalinay maaku gaaga quraac war anigu nin baqa ciidamada ka haysta miyaan kowdi nin ciidamada cid u haysanayna miyay halkan nin ciidan u haysanayna aniga waa la yaqaan madaxweyne waa boqol iyo konton jeer baan dadka taariikhda u sheegay aan niri anigu nin baqayna maana la yiraahdo uu baqay madaxweynuhu maanta waa la og yahay taariikhdan waa la haynaan diyaarada madaxweyne waa joogaysaa may adeer hortii dhigayso anigu nin hawada ka kalluumaysto oo hawada ka baa ku xidhaba kowdhi boqol iyo anaa isla yaabayn taariikhahan ka soo gudbana wallahi inaan la kala kiso maxaa sare reeb eeg waxaad samaynaysaa adeer in ciidan ku haysanay miyay ciidan ka gaar shay anaa tagay wallahi mar baan sirkayga in dhacad ma haysta moodo ina kayga tagay kara ma gaadhay dhacdo waa anaa tagay kaliya madaxweyne haddaba waa tash la soo wasiiradaadiyo
wartashii hore baan ugu qaaday oo 9 ciidan aan daba dhigay anagoo dalka maray markaas inay soo dacaadi leeyahay madaxweynuhu bir buu xulan yahay xabadu ma karto ciidamo malaayiin buu wata madaxweynuhu waa baqaya nin baqana mihi ab iyo sir normal leeyahay xaman jiray waligeena leeyahay soo sheegay kowdi umadna way wada taqaan aniga baa leeyahay 1 milyan ciidan wata maanta tiibad doonaysa tashi hadda yeeli maayo ee laba mid qodob ka dooro waa ruuga tariyaana ku dortay cilmiga ku dortay baqdada ka yaali cilmi midoodan ku sheego inaan iska joogo waa ku kacsan iyo inaan maxaan idhaahdaaye aan ka joogo cuntooyinka qaar wax ka samayn karaysa cuntooyinka qaarna madaxweynaha macluumaad baa lagu yiri ka horta wax inta diyaaraysa waxaan diyaariyay hilib yaro la shiidayo ariga daqiiqo maanta ka saafiga kuwaas habis yaaraga waa tabnikan aan ka wareystay raga isku SHA man la hadlay kowde waxa loo tahay shan neef oo geela oo xoog inta leeyahay oo hilibka laga jaraya macaan yahay kowde shanta neef geela waxa diisay yaagan waxaan digaag iyo kalluun iyo jirin waxaan ma yaqaan waxa arkiisa ma soo marinays waa cross waa ninkan waa caanageel iyo hilibgeel geela mar maalayna soo qalayna ma labadaba waa laga sameeyay caana darayna waa shanta cishee ugu waa diilka loo buuxiyo waayo gabadhina sameeyna ma doonayaan aniga adii timaado hilibkan geel shiris anu ma doonayaan weydiyo waxaan adii soo kaxaysan iyo moogti iyo waa la hadlay shiris oo burburan shiris oo qaali ah doonayaan adu sidaas u sameeyay digaagadiyo waxaas kuma jirta no kebab no creams waxa siyaalka waxa ma horaa la soconaya ila markaa protocol kala wadigaad keensa wada hadlaysaa hawshaadan ku ogahay haddana meesha ka jiniya sidaad igu waa hilib geelka laga hela meesha hayi